taliyaasha ciidamada kala duwan halka fadhiya bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan bismillaahi raxmaani raxiim sidii qaranka Soomaaliland asxaabta qaranka shacabweynaha reer Soomaaliland dhammaantiin ka warqabtaan waxaanu galay doorashadaasoo si nabadgelyo ku bilaabatay si nabadgelyo ku dhamaatay waxa weeye maaha markaa in nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland aynu madaqadan ugu xeeran badankeeda kaga duwanahay maaha in la carqaladeeyo maaha in dib loo geysto waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida kala duwan waxay u yihiin ama u dabran yihiin ilaalinta iyo nabadgelyada shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay markaa xisbigu doonahaado asxaabta qaranka cidii nabadgelyo darro samaysa waxa weeye waxaan leeyahay yaan la iska horkeenin shacabka iyo ciidamada qalabka sida kala duwan waayo nabadgelyo wanaagsan ayaynu haysanaa sidaa tani ugu dhawaajiyay cidda waxaan leeyahay ragga siyaasiyiinta ama cidda fadqalala wada waxa weeye cid walba sharciga ka sareeya ciddii sharciga baalmarta sharciga laga talabaad laga qaadayaa waxaan leeyahay caawa sida ka warqabtaan magaalooyinka Burco Hargeysa iyo Cergaabo inta rabshada ka dhacay maaha mid loo baahan yahay iyadoo natiijadiiba soo bixin maaha in la fadqalalo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan soo jeedinayaa war shacabka yaa la majra habaabinin oo nabadgelyo darro lagu abuurin cidii nabadgelyo darrada ku abuurta ama cid kasto isku dayday in nabadgelyo darrada waxa weeye nabadgelyo darro markay timaado dib baa imanaysa war shacabka dibka laga daayo iyo hawlaha la gelinayo waxa ay arintaas saameynaysaa nabadgelyo darrada cidii ficil af ama waxaan jirin faafisa warar propaganda oo aan jirin waxa weeye sharciga qabanaya mid waxa uu taalaa anagu taageerayno abni baanu ka hadlanaa waxaanu taliyaashii qaranka u imaan nabadgelyada waxaan soo jeedinayaan ku booriyay shacabweynaha reer Soomaaliland in ay ka warsugaan kumishiga doorashooyinka qaranka cidii wax tabanaysa waxaan bayaaminayaa cidii nabadgelyada wax u dhintaa in aanay ciidamadu ay gacan adag oo sharciya ay marin doonaan cidii doonaha ahaado waxaan asxaabta qaranka ku celinayaa mar labaad in amaanka la ilaaliyo oo shacabka fidna la dhaxgelin ayaan u sheegayaa cidda hadda faralkan dhaqaajisana waxa weeye war shacabka dhibaatada ka daayaan mid leenahay shacabka fidnada ka daayaan mid leenahay nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa qaali waxaan kaga baxayaa oo leeyahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay istajiya war ciidamadiina rabash hawlaanina ciidamadu cadow badan baa jira mid gudeed baa jira oo ka faa'iideysan kara waxa jira dad kale oo cadow ah oo caalamka oo dhan jira waxaan leeyahay la idinka faa'iideysanin arrimaha noocaas ha laga daayo boobka meeladaha burburinta hantida ee wadooyinka gubidda waxyaalahaas oo dhami waa dambi dad badan baa la qabtay dadka rabshadaha lagu qabtayna sharciga la horgeyn doonaa waxaan ku celcelinayaa dhawaaq dheer leh war amaanka la ilaaliyo ciidamada la shaqeeyo cidii fal nabadgelyo darro abuurta ama ku kacda ciidamada qalabka sida kala duwan waxay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan waxaana la horgeyn doonaa sharciga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.